waxaad doonaysaa in aad uurad yeelato. Arrimahani halkan ayaan kugu sheegi doono. 10kani shay ku dadaal waxay kaa caawinayaan dhanka uur qaadista. Arrinta koowaad waxaa waaye inta aad uur lagugu sheegin aad processkaasi aad ku jirtid. Kow waa in aad pregnancy plan wax lahaa inaad yeelatid checkup. waa inaad dhakhtarkaaga la kulantid, lagu sameeyo, lagu baaro waxa all kind of infections in laga baaro, hormoonadaada la baaro, ma isku dheelitiran yihiin, diyaar muu tahay inaad uuraad qaadid. Sidoo kale scan lagu saaro, pelvic scanka hoos lagu saaro xansidahaadii, uteruskaaga, maaragtay ninkaaga, cervixkaaga, all of them diyaar muu yihiin in maaragtay uurkii waxa mise gabadhani markay uurka ay qaado diyaar muu yihiin, xubnahani diyaar ma yihiin. waxaa lagaa rabaa in aad dhakhtarkaaga ilkaha la kulantid. haddii uu maaragtay intaad uurka aad qaadin waa inaad dhakhtarkaaga la kulantid. ilkahaaga ma wax suus baa jiro, wax hadhow dambe markaad uurka aad qaadid dhibaato ku keeni doono maa jiro. Arrinta saddexaad lagaaga baahan yahay waxaa waaye in aad samaysid mise inaad ka tanaasushid wax walbo oo dhaqan xun ah. haddii aad qof muqaadaraad isticmaala aad tahay, sida shiishada, waxyaalaha kale oo maaragtay daawooyinka drugska isticmaalaya, mise qof bad habit ku jiro oo hurdadiisa iyo wixiisa ay qaldan yihiin haddaad tahay, waa inaad ka tanaasushid sababtoo ah waxay kaa hor istaagayaan uur qaadistaada. Arrinta kale in aad ka tagtid loo baahan yahay mise aad yaraysid loo baahan yahay waxaa waaye qaxwada. Asxaabul qaxwo halkani ayaan kugu sheegayaa, qaxwada yaree, habka kafeeyga isticmaasho, kofiga, qaxwada iska yaree. dad uur raadis aad ku jirto, qaxwada dhibaato badan bay ku lahaanaysaa dhanka uur raadiska. iska yarey qaxwada isticmaalkeeda. haddaad maalinkii 3 galaas 4 galaas aad cabaysay, yarey 1 galaas kusoo reeb. midda kale ee aad ku dadaashid loo baahan yahay waxaa waaye nutrientskaaga, dietskaaga, cunadaada ku dadaal. cunada wanaagsan isticmaal, cunada nafaqada ku jirto isticmaal, cunada ay maaragtay dietka balanced ah isticmaal, proteinka isticmaal, sokorta iska yarey, difinta badan iska yarey, waxyaalaha saliidda ay ku badan yihiin iska yarey. cunadaadi hadday isku dheelitiran tahay, maaragtay uur qaadistaadina easy bay kuu noqonaysaa. sababtoo ah qof walbay sokorta ay ku badan tahay, saliidda ay ku badan tahay, balance diet aan cunaynin, protein aan cunaynin, qashin junk food oo idil cunaayo, la kulmaysaa hadhow dambo dhanka uur raadiska. Arrinta kale xilliga aad uurka aad raadinaysid in aad maaragtay samaysid lagaaga baahan yahay waxaa waaye waxa loo yaqaano kaniinka folic acidka. folic acidka muhiim wuxuu ku leeyahay maaragtay dhanka uur raadiska faa'iido weyn ayuu ku lahanaya hadhow dambo. sababtoo ah xilligaad folic acid haddaad isticmaalkiisa aad bilowdid, lot of benefit badan buu ku leeyahay dhanka uur raadiska uu ku leeyahay. marka isku day in aad folic acidka aad ku dartid daily routinkaaga, maaragtay aad isticmaashid folic acidka daily aad u qaadatid marka aad uurka aad raadinaysid. sidoo kale xilligaad uur raadiska ku jirtid dhakhtarkaaga la kulan, kala hadal daawooyinka aad isticmaalahay sidoo idil, all kind of medication aad isticmaalaysid dhakhtarkaaga kala hadal. sababtoo ah daawooyinka qaarkooda waxaa jirta uurka kaa hor istaagaya ayaga naftirka, oo hadhow dambe wixii markaad qaadidba kaa soo rida. marka isku day in aad wixii daawo safe aad isticmaali kartid dhakhtarka inaad kala maaragtay consultation aad la samaysid dhakhtarkaaga. sidoo kale waa inaad maaragtay waxyaalaha daawooyinka xunxun oo maaragtay uurkii kaa hor istaagayana waa inaad kala tashatid dhakhtarkaaga. arrimaha kale oo in aad ka figjignaatid loo baahan yahay oo maaragtay mar walbo anteenadaada inay taaganaato loo baahan yahay waxaa waaye waxa loo yaqaano seafoodka, cunooyinka oo badda laga soo bixiyo, all of them waa inaad maaragtay ka fijignaatid markaad isticmaalid mise cunaysid. sababtoo ah high mercury ayaa ku jiro cunooyinkani. high mercurygaana high uu jirkaaga ku noqdo, mercurygaana high uu jirkaaga ku noqdo, waxaa dhici karta dhibaata inaad kala. arrimaha kale lagaaga baahan yahay maaragtay in aad
ku dadaashid waxaa waaye weigtkaaga waa inuu isku dheelitirnaado. Standard weight waa inaad lahaatid. Exercise-kana waa inaad samaysid. Exercise mise jimicsiga wax loo yaqaano waa inaad ku dartid daily routine-kaaga markaad u raadis aad tahay. Exercise oo vigorously-na ha samaynin oo zaa'id ah. Exercise oo yarna ha samayn. Exercise qiyaasa. Weigtkaaga mise miisaankaagana isku day in aad ka dhigtid balance. Standard waa inaad ka dhigtid. Arrimahan oo idil halkan ayaan kugu sheegay haddaad samaysid uur qaadistaada mise xilliga aad uur raadis aad tahay very easy ayay kuu noqonaysaa. Asxaabta TikTok, asxaabta YouTube-ka fadlan ha naga iloowina follow-ka, share-ka, postiga, repostiga si aan maaragtay meel fog aan u gaarno. Idinkana maaragtay asxaabta naga maqalna ay nagu soo joogin gareysmaan meel walbaad joogtiina soo dhawaada waxaan idinkaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.